weligaa isku dayday inaad shaqeyso teeda kale shaqooyin badan aad qabato ma jiraan still wax isbedel oo jirin maanta waxaan idin haynaa xalka ugu fudud ee kaga hadli doono isbedel cusub dhalinyarada inta badan oo ogeyn waxa waaye muuqaalkan inuu yahay midka adiga kugu habboonaa oo u baahan tahay inaad dhegeysato ama daawato maadaama hadda lagu jiro 2026 wax badan ay iska bedeleen adduunka bedeleen online wax walbo marka guys soo dhawaada mar kale waa wiilkeeni Fast Production channelkan waxaan leeyahay muddo ku dhawaad 6 sano wax video lama soo dhigin soo jiro awgeed laakiin ugu dambeyn alxamdulillah ilaahay suurta geliyay inaan hadda isku soo laabno waxaan u maleynayaa badankiin inaa ii taqaanin kaliya photographer ama cameraman only nin wax sameeyo like sawirada qaado kaliya waxaa idinka qariyay inaa YouTube leeyahay dabcan YouTube kan waxa waaye 2016 ana gacanteeda ku sameeyay waxaa jira dhalinyaro fara badan oo hatta ku arki doontaan YouTube ka dhexdiisa oo old legend old is gold dhahay marka YouTube kan marxalad badan oo soo maray ugu dambeyntii ilaahay ma qoran inaa in badan soo fariisto laakiin markii ugu dambeeyay xasuusto wuxuu ahaa 2020 bish January video ugu dambeeyay waa arki kartaa hoos soo fiiri videoyaasha ugu dambeeyay soo dhignay waa haddana alxamdulillah ilaahay noo suurta geliyay inaan isku soo laabano mar kale waxaan rajeynayaa insha Allah waxyaabo fara badan oo idin qanciyo like in documentary like broadcasters a lot of things oo u baahan tihiin maadaama hadda adduunku isku bedelay online so wax walba inta aan ku falanqeyn doonaa waxaan rajeynayaa guys in badan inaan wada joogi doono wax hadalkii aan idinku dheereenin muhiimadda rabay inaan sheego wax waaye guys adduunka waxa ogtihiin boo dhalinyarada hadda in caqabado kala duwan haystaan qaasatan markii loo eego dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in qof dhalinyaro ah haddana marxaladaha adduunka jiro inuu shaqeeyo u baahan yahay marka maxaa waaye shaqooyinka ugu fudud hababka ugu fudud hadda wax lagu sameyn karo waxaa ka mid ah tan koowaad haddii aan idin sheego waxa waaye in qofka maanta uu hagaajiyo like YouTube channel camal YouTube channel kaas oo ka sameyn karo lacag laakiin marxalado fara badan ay u baahan tahay in lagu gudbo shuruudaha iyo waxa walba ugu baahan tahay inaad faahfaahin dheeraad ah kaasi insha Allah waa kaasiin doonaa inuu joog channelka waxba aan ugu caajisin YouTube ka hadii aad bilaawno shuruudaha u baahan yahay waxa waaye midda koowaad waxa u baahan tahay kun subscribers ama kun macaamiil oo mar walba ku xirnaada channelkaaga wixii soo dhacba daawado tan labaad waxay tahay shuruudda labaad waxa waa YouTube u baahan yahay ka hor inta lacagta lagu sameyn waa 4000 oo saacadood 4000 saacadood isku celis waxa la rabaa hal sano gudaheeda inaad ku keentid 12 bil xasleeyaa aydan xirfad fiican waay laakiin qof walba waxa u maleynayaa dhibaato fara badan oo kala kulmaya marka YouTube ileen idida u baahan yahay sida hadda marxaladaha aan soo maro kale hadani run ahaantii xalka ugu dhow hadda nin dhalinyaro u hayo waxa isleeyahay number 1 waa YouTube faa'iido fara badan uu leeyahay maadaama hadda aniga still lacag aan bilaabin laakiin aan rajeynayo bilahan soo socdo maadaama hadda aad dareemi karto in YouTube dib ugu soo laabtay waxa jiro xaalado hadda YouTube ka ii soo bandhigeen jaanisyo si lacag ugu sameeyo laakiin no problem waa isla socon doonaa insha Allah YouTube ka number 1 waaye xalka ugu dhow maanta qof uu sameyn karo xalka labaad waxa waaye guys mobile money sidaad inaad meel furato sarif la camal EFC iyo dahab M-Pesa waxa isku kala diri kartid xalka ugu fudud $10 daaysid maanta sarif loo noqon kartaa misanaa xalka saddexaad guys waxa waaye inkastoo in badan dadkeena hadda garanayeen luqadda Englishka waxa waaye aad u muhiim yahay hadda adduunka waxa waa AI isticmaala inta badan AI ga wuxuu naga saacidi karaa inta dad waxa jiro hataa u baahan in luqad loo turjumo like Soomaali hal area qof hal daqiiqo camal dhageysanaayo Soomaaliga dhageysanaysa then xasminaysa turjumaana ku sameynay inta Englishka taqaanid AI ga waa bedelaysa hadda shaqadaasna way banaan tahay waxa kale oo jiro
shaqooyinka hadda ugu fudud oo mid afraad waxa waaye dad hadda waxaa jiro tiktokers like oo marka Soomaalida aan ka hadalno iyo kuwo fara badan oo u baahan community badan in laga tiro moderatorkina qabatid de community-da hadda wixii loo soo qoraa dadka jaanis uma helayaan laakiin inaa la heshiisid oo like lambar kala qaadatiin WhatsApp-ka dan moderator ka dhig wixii comments xun soo qoraa marka live ku jiro marka video loo soo dhigo like video soo dhigo inaa wixii dhibay camal ka tirtid midda afraad waa taas tan shanaad aan kusoo gabagabeyn doono xawaaye tan shanaad guys wax uma baahno oo dhib badan like computer uma baahnid waxyaabo kale oo qaali agab 2,500 4,000 wax gaara uma baahnid just like waxa u baahan tahay only telefonkaaga inaa isticmaashid taasna waxa waaye inaa website badan ay jiraada Soomaalidan inkastoo website leeyihiin qaarkood waxaa jiro oo u baahan in xayeysiin loo sameeyo ganacsiyada qaar waxaa jiro ayagan sidoo kale dad u baahan in luqad loo turjumo taas inkastoo hore ugu soo hadalnay laakiin waxa waaye inta badan Soomaalida de luqadda aad ugu adag hadii runta isku sheegno luqadda garan lahayn way safar badan oo lacag lagu sameeyo way jiraan marka guys hadii channelka ku cusub tahay subscribe noo saar wixii fikradaada nagu soo biiri like saar see you again